ayadoo maalmihii u dambeeyay maamulka gobolka iyo maamulka degmada gobolka Gabiley iyo guddiga abaaraha oo iskaashanaya ay u tafaxayteen samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley ayaa maalintii shalay ahayd waxa guddiga abaaraha iyo maamulka gobolka Gabiley iyagoo iskaashanaya ay deeq raashin gaarsiiyeen deegaanada hoos yimaada gobolkaasi. halka waxaan u joognaa gurmadkii abaaraha in raashin lagu qaybiyo tuulada Goray raashinkan oo kamida raashin 2500 oo qoys raashinkooda ahaa oo ay noogu deeqeen hay'adda walaalaheena ee Qadar Charity oo inagala jooga Cabdifataax iyo saraakiisha kale raashinkaas oo shalay toole iyo maanta ilaa berri toole guud ahaan gobolka ay ka socoto qaybintiisu ayaynu imika u joognaa 5 in wixii dadkii haddana maartay wixii la gaarsiin karo la gaarsiiyo waxaanu leenahay wali xaaladuna waa taagantahay ilaaha raxmaanka waxa ka rajaynayaa inuu wax badan roobkana waa qaybo ka daay qaybo kamid ah gobolka ee hadda biyo dhaamista ka jira xaqiiqada dadkiina soo gaarsiiyay iyo hay'adiina soo gaarsiisay iyo guddigeennii qaranka ee abaaraha iyaguna way ku bahadsan yihiin wixii inaga soo gaara mar walba inaynu intaana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaan tasaamiyay wala wada ogyahay cid waliba meel way jirjiri hashiisu ugu wada jirtaa baladigeena libaha hashiisu jirtaa gobolka Gabiley maayirka ku xigeenka barasaabka hay'adaha waxaan oo keenay waan u mahadnaqaynaa. dhinaca kale maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa deeq lacageed oo ka soo gaadhay jaaliyada reer Gabiley ee ku nool daafaha dunida deeq lacageed oo ay soo gaarsiiyeen ku wareejiyay guddiga abaaraha. maanta waxayna soo gaadhay haddaan nahay guddiga abaaraha heer gobol deeq lacageed oo ka timi dad muxsiniina oo ka kala jooga adduunka daafihiisa kala jooga deeqda ayna soo gaarsiiyeen ilaahay waxaan uga baryaynaa halkii ay ka soo saareen inuu ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo. waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa nimcada roobka oo inoo shubay waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu nimcada nusqaanteeda inoo hareero mariyo galabta waxaan isugu nimi inaynu halkan ku wareejino lacag ay dad kala duwan oo qurbaha ku nool ay soo direen ay ugu tala galeen xaaladda gurmadka abaaraha ee gobolka Gabiley ka soo kala diray meelo kala duwan aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa dhammaan dadkaasi meelaha kala duwan ku kala nool ee dareenka damqashada leh ee kaga soo qayb galay inay dadkooga xaaladda abaaruhu saameysay ay la qaybsadaan duruufta nololeed adag ay ku jiraan. وعبد الله داير ورلالسك عالمي Somali Channel Gabiley.